subax wanaagsan qodobada wararka idaacadda Risaale saaka kuwada ugu waaweyn waxaa kamid ah faahfaahin dheeraad ayaa ka soo baxaya al-shabaab weerar ay ku qaadeen magaalada Marka iyo maamulka degmada oo sheegay in la sii ogaabo weerarka al-shabaab ay ku soo qaadeen magaalada ciidanka Danam oo xalay howlgal qorsheysan ku qaaday deegaanka Basra ee gobolka Shabeellaha Dhexe madaxweynaha Jubbaland oo sheegay inay ku guuldareysteen oo in dawladda federaalka ay diiday in la xalliyo khilaafka kala dhaxeeya maamulkiisa liiska xildhibaanada galmudug ee garabka madaxweyne Xaaf oo xalay la shaaciyay in galmudug oo qarka u saaran in laba maamul ay yeelato taliyaha ciidanka dhulka Soomaaliya oo tagay difaacyada militariga ay ku leeyihiin degmooyinka waa deegaanada Awdheegle Bariiri Sabiib iyo Afgooye madaxweynaha Koonfur Galbeed oo sheegay in la diyaariyay ciidamo booliis oo ka howlgala degmooyinka ay gacanta ku hayaan dawladda Shabeellaha Hoose hogaamiyaasha caalamka oo ballan qaaday in wax faragelin lagu sameyn doono colaadda ka jirta wadanka Liibiya iyo magaalooyin kamid ah dalka Shiinaha oo lagu arkay kiisas hor leh oo kamid ah caabuqa cudurrada halisa intaas waxay ahaayeen saaxiibayaal wararka saakay kuwada ugu waaweynaa waa 20ka bisha koobaad 2020 saaxiibayaal u dirgaro wararka soo dhameystiran aan eego wararkii ugu dambeeyay magaalada Marka faahfaahin dheeraad ayaa ka soo baxaya weerar al-shabaab xalay ay ku qaadeen gudaha magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose maamulka degmadana waxay risaalo u sheegeen in la sii ogaa abaabulka iyo weerarka al-shabaab ay damacsanayeen inay ku soo qaadaan magaalada Cabdiqaadir Jakarta ee dhameystiray xubno ka tirsan dagaalamayaasha ururka al-shabaab ayaa xalay fiidkii waxa ay weerar ku bilowday gawaari laga soo buuxiyay qaraxyo ku qaadeen fariisi ciidamo ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya ku leeyihiin magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose dadku sugan magaalada Marka ayaa risaale waxay u sheegeen in dagaal kooban oo duleedka Marka ku dhex maray ciidamada dawladda gaar ahaan kuwa guutada 14 Oktoobar iyo xubno ka tirsan al-shabaab oo weerarka soo qaaday hayeeshee maadaama ay ahayd xilli habeen ah ee si wili cadeyn karin qasaaraha ka dhashay dagaalka dhexreeya ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dagaalamayaasha ururka al-shabaab dadka degmada ayaa sidoo kale waxa ay risaalo u sheegeen in mararka qaar gudaha degmada inta uu dagaalku socday ay ku soo dhacay hubka ay isku adeegsanayeen labada dhinac balse aan wax qasaaraha ka soo gaarin dadka shacabka ah ee ku nool magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose inkastoo al-shabaab iyo waliba sidoo kale ciidamada dawladda Soomaaliya aan si rasmi ah loo shaacinin qasaaraha ka soo gaaray dagaalkaas maadaama ay ahayd xil habeen ah ayaa haddana gudoomiyaha magaalada Marka Cabdullaahi Cali Axmed Waafo oo la hadlay risaalo waxa uu sheegay inay iska difaaceen weerarka kaga yimid dhinaca ururka al-shabaab ciidamada dawladda ee ku sugan magaalada Marka isla markaana weerarkaas oo ahaa mid markaasi la ogaa loona sii diyaar garoobay taasna ay keentay in qasaare xooggan ay ku gaarsiiyaan sida uu hadalka u dhigay waxay ka soo kaceen jilib Marka ee magaalada Marka meel u jirto ilaa 8 kilometer ilaa 10 kilometer u jirto ayay ka soo kaceen galabta dheer ayaa la ogaayay xogtooda iyo warbixintooda iyo fariimahoodaba waana loo diyaar gareysnaayay inay ciidamadu gaadaan bay ku soo talagaleen laakiin meeshaas meel ay ku gaartamaan ma aysan aheenin shacabka diga cadcaday dhulkan digo dhan baa warbixintooda noo soo gudbinayay sidaas ayaa loogu diyaar gareysnaayay ciidamada difaacooda ay diyaar ku ahaayeen maralaal markay wax soo turtuureen oo difaaciya loogu tilaabsaday horeyba ay u carareen ilaa haddana waa lagu maqan yahay weli waxaad tiri waan ka warhaynaa tiri weerarkooda iyo xogtooda waan ogin marka mar haddii aad ka warhayseen Soomahan duulaan qorsheysan oo shabaab ay ugu talagaleen magaalada ku soo qaadaan adeer waxaan ognahay in maaragtay nimankaanayto mar waliba ay maaragtay qaataan in meel ciidan asjoogo in la weeraro maaragtay ay dhibaato gaarsiiyaan ay mar walba yani ku suureeyaan laakiin magaaladaas Marka in nabaaxigeeda tuulooyinka Shalambood ahaato ama Buufo ha ahaato ama Ceel Jaalle ha ahaato ama Marka ahaato inta gacanta dawladda ku jirto uma suurta galayso inay ciidan ku gaadaan waayo shacabka ay soo dhex marayaan ciidamada fariimaha u soo gudbiya ayagoo xogtooda la haayo ayaa halkaas ay maaragtay lagu sugaa haddana marka xogtooda la helay waxay ahayd fiid hore maqdimidii way heeday arrintan mugdi way ahayd ciidamada difaacidooda ayay si fiican u adkeysteen mar allaal markay banaanka soo istaageen wax soo tuureen waa loo jawaabay difaaciga loo tilaabsaday hore way u carareen inka yani ogaalkooda mar waliba waa ogaanay haday jilib ka soo kacaan haday janaale ka soo kacaan haday meel kale ka yimaadaan aagaas markii ay soo kicitimaan hore waa laga ogaanayaa dadweynaha
carrada degan ayaa warbixinta soo gudbinayo ama maamulka degmada soo wargeliya ama ciidamada saraakiisha madaxda ciidamada ee difaacyada hore ku sugan soo wargelinayo dadkoo dhan waa dad cadowga diidan. wararkii ugu dambeeyay ee saaka naga soo gaaraya magaalada Marka ayaa waxay sheegayaan in ciidamada dawladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa guutada 14 Oktoobar oo gacanta ku haya magaaladaas ee duleedka degmadaas ka wadaan howlgallo iyo dhaqaaqa ciidan hayeeshee xaaladda ay tahay mid degan isla markaana isu socodka dadka gaadiidka iyo goobaha ganacsiga ay si caadi ah u shaqeynayaan hayeeshee si weyn looga dareemo xalay dagaalka halkaas ka dhacay dhex marayna ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa ururka Al-Shabaab ee degmada Marka soo weeraray. madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo wali ku sugan magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari waxa uu sheegay in ay dhiciso weyn qorshayaal badan oo la doonayay inay ku wada hadlaan asaga iyo maamulkiisa asagoo eedeyntan u jeediyay dawladda federaalka Soomaaliya oo sheegay in ay diiday in la xaliyo khilaafka kala dhaxeeya. waxay dad badan aad isu weydiinayaan oo dad badan oo hadlay dareenkoodu u yahay inaan annagu dawladda federaalka ka soo horjeedo oo lugaha hayno qabiil ahaan lugaha uma hayno shakhsi ahaan lugaha uma hayno dawlad ahaan lugaha uma hayno ee waxaan leenahay waxaan ku heshiin aynu ku dhaqano waa intaa keliya. waxaan noo yimid guddoomiyaha aqalka sare oo wafdi wata waxaan kuli guddoomiyow shuruucdii waddanku waa kuwan waxaan rabaa intaad qoorteeda qaado madaxweynaha jamhuuriyadda u geeyo lugtiisa ku xidho balkaa inaan ku kala baxna ka shaqey. jawaabtii soo siiyey waxay noqotay qoortaada meelaan ku xidho waan waayay. waxa maanta aan galabsanay oo reer Jubbaland shacabku ay galabsadeen oo intaasoo cunaqabatayn iyo dhib iyo loogu hayo kulli maxay tahay waxay tahay keliya inaan ka hadlayno fikirka aan qabno ee dawladnimo oo aan leenahay waxaana saxa waxaana khaldan weliba maaha meel bannaan aan taagana maaha inaan xataa hoos u hadlayno. maanta in la dumiyo oo la furfuro oo dad loo soo diro oo reer Boosaaso intii la yidhaha hebelow intii Facebook loo soo diro lacagana lagu bixiyo adna ka yeel oo guryaha albaabada intii la iska daayo daaqadaha laga soo galo maxaa idiin imanaya oo dhacaya dhibaato intee leeg baa beridii ku dhacaysa ilaa gurigii waxaa la iridaha laga soo galo haddii la yidhaha guriga daaqadaha laga soo galo dhib intee leeg baa dhacaya waa mushkilad inteeda leeg waa shay cajiiba wey. waxa aad ku tacbayseen waxa aad dhisayseen waxa aad ka shaqaynayseen in maanta la idiin isticmaalo waxaan macno ku samaynayn waxa aad diideen wey waxa annagana lanagu hayo. maanta annaga si badan baa lanoo dhexgalay waxay sababtay maanta wasiir ka mida wasiiradii Jubbaland inuu ku xidhan yahay maxaad u ogolaatay doorashadu inay dhacdo maalintaad ololo samayso dhibaato geysta wasiirka amnigaada hayday inayna doorasho dhicinaad ka shaqaysi maaha dembi loo haystiyo wuxuu galay iyo kulligeed maaha keliya waxa weeye inuu ogolaaday inuu ciidamo sheegana u yeedhan waaye burburna ka shaqayn waaye intaasaa dhibaatada loogu geysanaya oo maanta uu ku xidhayo xuquuqdiisii loo haysta. waddankani wuxuu u baahan yahay Facebook iyo social media midna kuma waxaysineen waxa muhiimka oo waxay tahay maanta reer Puntland oo idin leeyahay idinka oo fariintaydu ay tahay maanta barwaaqaad ku jirtaan. Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa wali ku sugan magaalada Boosaaso halkaana waxaa ka soconaya shir asaga iyo waliba hogaamiyaha Puntland u dhaxaysa waxaana la filayaa shirkooda in ay ka soo saaraan warmurtiyeed ku qoto xaaladda siyaasadeed amni dhaqaale iyo mid doorasho ee la xiriira dalka kuwaas oo u badnaan doonanse kuwa ka dhan dawladda federaalka inay ka soo bixi doonaan. qodobada kale ee warkeena subax ee saaxiibayaal ka haray waxaa qaybka ciidanka danam ee sida gaarka u tababarnaya xalay howlgal qorsheysana waxa ay ku qaadeen deegaanka Basra ee Shabeellaha Dhexe halkaas oo ay howlgal ka fuliyeen. Basra oo Shabeellaha Dhexe ka tirsan waxaa ku yaala saldhigga ugu weyn Al-Shabaab ee laga soo abaabulo weerarada lagu qaado Balcad Afgoye iyo waliba meelo kamid ah wadada dheer ee isku xirta Muqdisho iyo waliba Balcad. warbixintan waxaa soo dhameystiraysa wariyana Shukri. ciidamadan oo xalay fiidkii ka yimid dhanka Muqdisho ayaa la sheegay inay ka galeen deegaanka Basra jidka jaayga ee aada Afgoye kana baxa degmada Balcad. wararka ayaa sheegaya in ciidamadan ay ku hubeysnaayeen gaadiid dagaal oo ku dhawaad gaaraya ilaa 40 gaadiid oo ay wehelinayaan gawaarida ambalaasta waxaana dadka deegaanka ay sheegeen inay fiidkii hore ee xalay ka yimaadeen dhanka Muqdisho. deegaanka Basra ayaa u jira degmada Balcad ilaa 16 kiiloomitir waxaana deegaankaasi saldhig
weyn u ahaa dagaalamayaasha al-shabaab waxaana lagu tilmaamay in al-shabaab uu u ahaa basra saldhig ay weerarada kaga qaadi jireen afgooye balcad iyo wadada isku xirta balcad iyo jowhar inta badan howlgalada ciidamada danab ee uu tababaray mareykanka ayaa ah kuwa gurguura oo aan saldhig lahayn waxaana dhacda in deegaano ay la wareegeen ay isaga soo baxaan muddo kadib markii ay fuliyaan howlgalada gaarka ah muddooyinkii ugu dambeeyana ayaa waxaa soo baxayay warar sheegaya in dagaalamayaal fara badan oo ka tirsan al-shabaab ay soo buux dhaafiyeen deegaanada gobolka shabeellada dhexe iyaga oo kasoo cararay duqeymaha gobolada shabeellada hoose iyo jubbooyinka. warkii la xiriira shabeellaha hoose ayaan markaan ku laabanina taliyaha ciidanka lugta waxauu kormeer ku tagay deegaano kamid ah saldhigyada ciidanka dowladda goobaha ay ku leeyihiin taliyaha ciidanka dhulka ee militariga Soomaaliya sareeya guuta cabdixamiid maxamed dirir ayaa kormeer shaqo waxa uu ku tagay difaacyada ciidanka xooga dalka ay ku leeyihiin deegaanka awdhegle bariire sabiib iyo degmada afgooye ee shabeellaha hoose ka tirsan janaa cabdixamiid maxamed dirir ayaa mid u dul istaagay difaacyada isagoo oo halkaasi kula kulmay ciidamada iyo waliba saraakiisha halkaasi ku sugan taliyaha ciidanka dhulka ee Soomaaliya Janaal Cabdixamiid maxamed dirir ayaa waxa uu ciidamadu faray inay u diyaar garoobaan howlgallo ka dhan al-shabaab oo la doonayo in markale laga bilaabo deegaanadaas hadda gacantii ku hayaan dowladda safarka taliyaha ciidanka dhulka ayaa kusoo aadaya iyadoo ciidamada militariga Soomaaliya ay toddobaadkii hore weerar qorsheysan ay ku qaadeen deegaanka Torotoro halkaasoo saldhigga ugu weyn al-shabaab hasaye oo qabsaday laakiin mar dambe iskaga soo baxay halkaasi wali ma jirto faahfaahin iyo waliba istiraatiijiyad midkoodna ay militarigu faahfaahiyeen sababaha ku aadan waxaa hakiyay howlgalada shabeellaha hoose iyo qorshaha loogu soo baxay Torotoro dhinaca kale isla madaxweynaha koonfur galbeedna waxa uu sheegay in la diyaariyay ciidamo booliis ah oo ka howlgala degmooyinka gobolka shabeellaha hoose waxaana sheegay in ciidamadan bilowga sanadkanba la siin doona qalabeyntooda kala howlgeli doonaan degmooyinka ay gacanta ku hayso dowladda federaalka ee shabeellaha hoose ka tirsan cali xasan ayaa sii dhammaystiraya madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigareen ayaa sheegay in la diyaariyay ciidamo boolis ah oo loogu talagalay inay sugaan amniga degmooyinka gobolka shabeellaha hoose waxa uu sheegay in ciidamadan ay dhameysteen tababarkii balse ay heegan ugu jiraan shaqooyinkii loo diyaariyay sidii ay ugu gudagali lahaayeen waxaana intaa ku daray in bilowga bisha soo socota la geyn doono xerooyinkii loogu talagalay madaxweyne Laftigareen ayaa isagoo la hadlayay ciidamada waxa uu tilmaamay inay heli doonaan mushaaraadkooda iyo qalabeyntii balse looga baahan yahay inay dulqaataan intii ay kasoo gaarayaan waxa uu sheegay in dhowaan wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya iyo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ay ciidamadan ku booqan doonaan xerada ay ku jiraan kadibna dhammaantood la diiwaangelin doono lana siin doono qalabkii loogu talagalay si xuquuqdooda ay u helaan ciidan dawladeed baa tihiin ciidan qaran baa tihiin waxaad sugaysaan howlgalkii iyo oberatinkii iyo shaqadii laydin diri lahaa tababarkii baad dhammaysateen inspection wax la yidhaahaa jiro yaa maraysaan broseyskiinni baa idiin socdo dawladdii koonfur galbeed oo dhan baa idiin taagan dawladdii federaalkaa idiin taagan waxaa la rabaa inaanan la dhaqaaqin la dulqaato ciidannimadii iyo tababarkii la isoo siiyey aad ku dulqaadataan adkaysataan hadduu ilaahay maya dhihin waxaan jecelnahay insha allaahu bishan kowdeeda nin walbaba xaruntiisa asaga oo jooga inuu mushaarkiisana meesha ugu soo dhaco waajibaadkiisana meeshiisa uu ku guto qaybihii la idinkugu talagalayna aad martaan insha allah waxaan idiin imaanaya isbuucan taliyaha qaybta guud taliyaha qaybta shabeellada hoose iyo wasiirka amniga caliyo waad mahadsan tahay warbixinta ugu dambeysa warkeena subaxana caalamka qodobka ugu weyn haddii aan eegno caabuqa cudur cusub ayaa shiinaha ka dilaacay iyadoo hadda dowladuna ay sheegayso in laga hortagi karo lala xakameyn karo cudurkan halista ah intuusan kusii faafin gudaha wadankaasi China caabuqan cusub oo lagu arkay dalkaasi shiinaha islamarkaana iminka kusii faafayo meelo ka baxsan dalkaasi shiinaha ma laga hortagi karaa waa la xakameyn karaa ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay dowladda waxaa sidaas sheegtay waaxda caafimaadka ee dalkaasi China hase guddiga caafimaadka ee shiinaha ayaa ka digay in loo baahan yahay in si dhow loola socdo halista cudurkan cusub saraakiisha caafimaadka ee wadankaasi shiinaha waxa ay intaa ku dareen
inta badan la ogeyn caabuqan iyo weliba sida uu kusii faafayo gudaha wadankaasi iyo nooca uu yahay. ilaa hadda dad fara badan ayaa u dhintay xanuunkan oo la xiriira dhanka neef mareenka kaas oo kusii faafaya magaalooyin waaweyn ilaa bishii December ee sanadkii hore 2019. waana markii hore oo ay dowladda China ay war ka soo saartay cudurkan oo aan la garanin, waxaana saraakiisha dalkaas ay sheegeen in ay sare u sii qaadmayaan ama sare u sii kacayo dadka la xanuunsanayo cudurkan. xaaladaha gaarka ah ay noqdeen mid aad u culus marka loo eego dhamaadka sanadkii hore ee bilowga sanadkan. cudurkan oo ah mid ku dhaca neef mareenka ayaa cudur halistiisa leh oo wadanka Shiinaha ka dilaacay. dowladdu waxa ay sheegaysaa in hadda la doonayo in la xakameeyo lagana hortago khatarta cudurkan. waa maxay caabuqa? tijaabo badan oo laga qaaday bukaanada ayaa waxaa lagu baaray shaybaarka. saraakiisha caafimaadka wadankaasi Shiinaha iyo hay-adda qaramada midoobay dhanka caafimaadka u qaabilsan WHO ayaa sheegay in baaritaano ay ku heleen caabuqan cudurkan oo ah mid ku dhaca neef mareenka inuu yahay mid halis ah. saraakiishu waxa ay sheegeen dalka Shiinaha inay ka shaqeyn doonaan wax walba ku saabsan xakameynta iyo ka hortagga khatarta cudurkan. warbixintan ayaa ugu dambeysay saaxiibayaal warkii subax aad ka dhageysaneyseen idaacadda Risaale magaalada Muqdisho. sidoo kale waxaad ka dhageysaneyseen radio Asal Jowhar 6.6. warka waxaa akhrinayna Dabasha. nabadgelyo.